farxii horta ilaahay u naxariisto laakiin waxaa ka xumaaday maamadan oo qabriga waxa geenaysa calanka ilaahay ku naxariisto naxariista Allah ku sii ay janno firdaws Allah ka waraabi ayo qabriga Allah ku waasay maama horta in ka sheega ma jecli laakiin gabadhaas ilaahay u naxariisto anaga dhana wada dhimanayno laakiin midda ka xumaada waxay tahay weligay ma arkin qabri calan la saarayo wallahi waa ka xumaaday gabadhaas ilaahay u naxariisto qabri Allah u qaboojiyo inta u duceey qabri ma la qalbiga ugu duceey laakiin maxaa calan wax la geenayo la dul saarayo asxaab xasmi la aragteenani bismillah la ilaahay dadkana iska dhaaf gabadhaas way dhimatay ilaahay u naxariisto hadda waxa laga yaabaa inay ninkeeda ka soo horbax waxa sameeyay ilaahay raali kama ninkeeda raali kama والله ما من ناحية قدوة من جعلي لكن إنه سوء أفارين إن عمل واحد عمل واحد لوط وقاعدة كرمها وحلا جاء مسكر معها. sida aragteen geenyo waxay noo sheegtay hadal yacni saxan oo ah in yacni qofka haddii maanta aad taqaan ama duu ehelkaaga yahay ama duu yacni qof aad dhashacta hadduu yahay oo dhintay haddaad qabrigiisa booqanaysi ma aha in yacni oo aad sii dhahdo video ha layga duwo anoo waxaan sameynayo qofku waa booqan kartaa qabrigiisa maalin walba tagi kartaa daarta laakiin ma ahan in yacni video aad duubti aa yacni social media soo dhigtay farxii Allah u naxariisto labadii ka hore dhimatay dhinaca kale dayaxa lagu dhignaay oo la dhahay yacni asoo yacni oo tacsiib u taalo ayuu yacni kasoo qayb galay farxad aroos ah sida caadiga ee horaaba loo yiri fanaan diin ma laha la mugta qofka doomar fanka oo raaco ama wadada fanaannimada qaado yacni mar walba waxyaabo badan xataa haddii xataa damiir ahaan uusan u ogoleen yacni jism ahaan oo ogolaanaa ma fahanta marka taasna iyadan qodob kale ahayd laakiin maamadan waxay ahayd hadee yacni qabrigaas ay booqanayso oo gabadha Allah u naxariisto farxiyo inay booqato oo biyaheeda kusoo shubto faataxada iyo u duceyso ee kasoo tagtay ahayd ma ahayn inay video iyo duub ee dhahdo ee soo dhigto markaad ahaan sidee u aragtaa muuqaalkan oo maamada ayadoo qabriga biyo ku shubeyso oo dhehayso u duceynayso sidee u aragtaa geenyada maa saxan mise maamadaa saxan hoos kusoo kor caddee